Assalaamu calaykum. Muuqaalkan waxaan kugu soo gudbinayaa dhowr tallaabooyin oo ay noloshu faa'iido kuu leedahay adiga. Noloshu ma aha raaxo oo qura. Wax fikir ah la imow. Ha khaldanaado amaba ha saxsanaadee. Markaas ka fikir. Hadduu saxan yahay qaado. Haddii uu qaldan yahayna ka tag. Noloshu way socotaa. Waqtiguna wuu ordayaa. Lagaba yaabay adoo iska jooga inaad isweydiiso war waqtigu dheerayaa. Haddaba isweydiinta su'aasha ayaa ah in waqtigu jaanis yar oo wax ku ool ah ku siiyey oo ah inaad ka faa'iidaysato waqtigaaga. Nolosha waxaad ka faa'iidaa faa'iidooyin iyo khasaaraba inkastoo aad labadaba aad ku kala duwan tahay adigu. Haddii aad rabtid inaad faa'iido waad ka faa'iidaysanaysaa waqtigaaga iyo jaanis walba. Haddii ay khasaaro noqotona waa halka mar aad fadhiisatid adigoo ku luminaya ciyaar xun waqtigaaga amaba fadhiisatid si aad filim u daawato 1 ilaa 2 saac filim soconaya waana marka koowaad ee aad khasaartay intaan kuwa fogfogba la gaadhin. Noloshu waa raaxo, maya waa murugo, maya waa macaan, maya waa qaraar, maya waa faa'iido, maya waa bilaa faa'iido. Hadba adigay u garanaya hadba kay kuu tahay iyo hadba adkaad joogtid. Isweydiina mar walba su'aalaha ah maxaad ka faa'iiday nolosha, maxaa kaaga soo kordhay, ma khasaartay mise ma faa'iiday, ma jeceshahay waxaad samaynaysid. Markaa ayay kuu noqonaysaa noloshu mid hagaagsan. Waa haddii aad ka cabsi badan tahay alla rumee oo ku toosnow mar walbana xasuuso cabsida alle waxaa kuu hagaagaya noloshaada oo dhan. Mahadsanid. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.